wafdi uu hogaaminaya ergeyga qaramada midoobay Danjire James Swan ayaa shalay socdaal shaqo ku yimi magaalada Hargeysa. ma jiro war rasmi oo ku saabsan socdaalka ergeyga, laakiin warar uu wargeyska Geeska Afrika helay ayaa xaqiijinaya socdaalka ergeyga uu yahay mid caadi ah oo shaqadiisa la xidhiidha. waxaa la filayaa inay madaxweyne Biixi yeelan doonaan kulan, waxaana la saadaalinayaa inay kulankaasi kaga wada hadli doonaan arrimaha doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ee cakiran. ergeyga ayaa sidoo kale la filayaa inuu xoojiyo aragtida ay beesha caalamku madaxweyne Biixi u soo gudbisay bishii hore ee December ee ku saabsanayd fulinta qodobadii ay soo saareen guddidii dhexdhexaadinta ee ahaa in komishankan haatan la kala diro komishankii horena la soo celiyo. Danjire James Swan ayaa waxaa kale oo la filayaa inuu kulamo la qaato bulshada rayidka iyo xisbiyada mucaaradka ee Somaliland, waxaana la sheegay in socdaalkiisu yahay muddo 2 maalmood ah.